waxaan madaxweyne ka ahay ujeedadan waxay tahay bal burburka magaalada gaaray inuu arko dabcan madaxweynuhu gurgur uma booqan karo bakhaar uma booqan karo laakiin wuxuu ka warhayaa dhibka dhacay intuu leeyahay burburka soo gaaray magaalada iyo dadka iyadoon la kala soocin oon hayb loo kala soocin marka dib dhacdo dhibku qabiil ma lahan dhibku dad ma yaqaano kalar ma lahan cid kastuu saameeyaa marka madaxweynaha waxaan uga mahad celinaynaa runtii uu ka warhayay ilaa inta safarku soo jirnay waxyaaluhu intuu waddanka joogay intuu ka maqnaa ka xumaa bay ka mid ahayd waad la socotaan maalintii koowaad ee dhibku dhacay ee halkana laga tarxiilay anigii waaskii dadna la mid ah inuu madaxweynuhu ka hadlay oo statement ka soo jeediyey oo intaasoo jeer dadka advocate uu sameeyey waxaan socdo waa qalad haddii laisma dhegaysanayn waa ayaan darro ay jirtay ka mid ahayd madaxweynuhu wuxuu ku yimid rabitaankiinu ku yimid wuxuu ka xumaaday dhibkii idin haystay idinka jaarsi kaliya maaha Soomaali dhan buu haystaa dhibka ummad dhan buu saameeyay marka madaxweynaheena waxaan leenahay madaxweyne maanta shacabkii ugu horeeyay aynu aragno weeyaan oo markii koowaad dadkeenu ay telefoon la soo galaan xarumaha dawladda markii koowaad ay boorka madaxweynaha ku salaami karaan ku qaabili karaan marka waxaan leeyahay wixiina gaaray ummadeenu kala midnahay waxaana xaal marin nagu fulan maanta inaan madaxweynaha aan dooranay oo rabitaankeena ku yimid oo shacabku rabaan inuu maanta inoo yimid أنا هدان هاي من كنيسة كررت ما أنت يجوه رئيس رمتي وأنك على الحماد مركز أركي ماشي كده غد الرجال جربنا بقدوم متشتو عنا ندبو قبل ما لهن ما أنت أنا وحكت السنة هدولة أميرة متشتو صوالو واحد ترى هذا مدح ميل كسر صراحة ما لهن مدحوني ما نوتشوجا وحلمت هاي لو أركي كل كستول القدومي وحلمت هاي لو أركي بخار كستول الكبوبي وحلمت هاي بول كستول الكبير أركي النف كستول الأوعي والدليل runtii sida ugu gubanayo ayuu qof kasta dambe lagu gubanayo wax meesha ka dhacay waxaan ka codsanayaa wixii la dhaxan yaalay inuu haro argos hebel meesha dowladda jirta haddayna maanta dowladda gargaarkaagii oo qof kastoo jaarsi adduunku tallaabo qaadayna waxaan hebel marka argosan intaa hadda joogay Addis-Ababa madaxweynaha wada joognay waxaan la soo sheegay hebel baa naqaana hebel baa kamid ah kana kamid ah waxaan ka codsanaa sharciga uu daayay hebel annagu dad nabadgeliyaan salaam soo waxay suga insha Allah taala shaqadiisa oo bilaabi doona wax badan oo dal dhan baa laga duusan hotelkeena insha Allah dhawaan bilaabi doona wana nadiifin doona wixii inaga xumaad inaga hagaajsan doona waxaan ka rabaa bas inta ku dadkaan oo ogaata waxba inaga maqna madaxweynaha galabkiisa ahaata